munaasabad lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulihii ay dhawaan ka gaareen howlgalladii badweynta India ee ay ku qabteen magaalooyin badan ayaa waxa lagu qabtay magaalada London taasoo ay soo qaban qaabiyeen haweenka qaranka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska. Munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin, odayaal, waxgarad, haween iyo fanaaniinta dalkan Ingiriiska, iyadoo sidoo kale lagu amaanay dawladda federaalka Soomaaliya sugidda ammaanka goobaha inta badan ay ku amartaagleen jireen kooxihii nabadeedka ahaa ee Al-Shabaab. Dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan. Munaasabadan caawo waxay ku saabsan tahay taageerada ciidanka qaranka Soomaaliyeed. maxaa yeelay waxa maanta wadanka dhiigooda u hurayo oo naftooda u hurayo waa dad inagoo kala waa wiilasheenii. wasiirka gaashaandhigga madaxda Soomaaliyeed guud ahaan waa ugu hambalyeeynaa guulaha isdaba joogga ah oo la gaarayo. waxaana leenahay meeshiina ka sii wada ujeedada meesha la isugu yimidna waa in macnaha la dhiirigeliyo ummadda Soomaaliyeed nooc kastay tahay iyo ciidamada qalabka sida hablaha iyaga qaaliga ah muxuu ahaa ee qaranka Soomaaliyeed ee London ee ku soo fakiray iyagoo kaashanaya golaha guurtida ee Soomaaliyeed ee UK inay gartaan inay xusaan ama bogaadiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyagoo ku bogaadinaya guulaha la taaban karo ee waaweyn ay gaadheen muddadii dambe. aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha isku keenay inta mataqaana isla helay inta wadankii qaarna xoreeyay qaarna mataqaana maanta sii socdo ilaa iyo baraawi ka sii xagga insha Allah ta'ala guul baan u rajeeyaa ciidamada Soomaaliyeed. hambalyo aynu ku taageerayno ciidamadeena dawladda federaalka guulihii ay ka soo hooyeen wadanka iyo wasiirkeena amniga iyo dawladdeena federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud kidigood halkan waxaan hambalyo uga diraynaa guulaha waaweyn ay ka soo hooyeen wadankii. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in inta iyo in ka sii badanba ay ku sii socdaan. waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee ugu sareeyo guuto iyo sareeyo gaas iyo sareeyo guud uguna hooseeyo layli dable ayaan u mahad celinayaa hawshii weyneed ay qabteen oo ilaahay ku garab galay ee ay ku xoreeyeen dalka Soomaaliyeed oo ay cadawga uga xoreeyeen Al-Shabaab. qarannimada Soomaaliyeed waa inay raas kambooni ilaa iyo raas casar intaba ay ka jirtaa. waa in ka qayb qaadashadeeda loo wada dhan yahay in loo wada dhan yahay oo intii Soomaalinimada danaynaysa iyo midnimadeeda danaynaysaaba ay ka wada qayb qaataan. waxaan qabaa inay laga maarmaan tahay in yani dadka ama geesiyaasha u guntaday inay dalka yani dhiigooda u huraan in la taageero la kaalmeeyo. marka qurba joog hadii la yahay kaalinta la geysan karo oo qurba joog yani runtii sameyn karaan waxa waaye inay taageero dhaqaale iyo moral dhisid inay ku taageeraan. horta waxaa farxad weyn oo habeen iyo maalin baan u taaganahay waxay tahay guulaha wadankeena maanta ka soo hooyday. alxamdulillah ilaahay meeshaas nooga sii wado waana farxad weyn. waxaan isugu imaanaa waxay tahay caawa taageerada iyo guulaha ay gaareen ciidankeena qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan ugu hambalyeeynaa guulihii ay gaareen walow uu caaw horteena taagan yahay ninkii dharka militariga inta xirtay Xuseen Cayaar Jecel ee Muqdisho tagay ee guubaabadii askartii xoogga dalka Soomaaliyeed ay wada ooyeen. marka lama iloobi karo maanta dadka sharafta leh go'aan ha la gaaro nabadii ha loo guntado. geedka dheer iyo midkii gaaban gogosha dhiga geedka dheer iyo midkii gaaban gogosha dhiga waa go'nay aan ka gaarsiina gobolka haray calanka geesaha ka joogo gacmaha ku dhiga waa guhaaday maslaxad waa in lala galaa oo guudka sare iyo la sii geey meel gun adag guutaday ciidankuna gaardiska u galaan godolka maandeeq haruubkeeda yaan la gubin nin walba guriga u lahay gooniha u tagaa wixii kala gaaro Soomaali laga gudbaa dhulkeennii ganigay gaaska laga qodaa shirkadan uu gaar wareega ha soo galaan gaajada oon ku cid kale taa u galeen. heestii ugu horeysay ee uu sameeyay Dr. Cabdi Shariic Ciyaar Jecel Allah hadayste hotel Shamow
oo qayladhaantu ku aas-aasantay waxaa ku jirtay miraha waxaa ka mid ahaa qumbuliyad kola la dhacdo rabbow wax ka qabo qoomkan sida yeelay ninkii al-shabaab ugu weynaa ee madax isku yeelka ahaa qumbuliyad baa ku dhacday Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London